السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin waa mar kale iyo muuqaalkeeni saddexaad. Muuqaalkan wuxuu daba socdaa labadii muuqaal ee sii horeysay ee ahaa sidee ayuu suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex u shaqeeyaa, iyo casharkeeni labaad ahaa sidee ayaa uga mid noqon karaa suuqa sarifka lacagaha qalaad. labadaas markaa qaadanay waxa casharkeeni saddexaad uu noqonayaa waa maxay TradingView iyo website-kan suuqa laga akhriyo iyo siduu u shaqeeyo. website-kan waa website-ka caalami ugu fiican oo ugu caalamisan ee suuqa laga taxliiliyo ee laga akhriyo, waxaana la yiraahdaa TradingView. website-kan si aad uga mid noqoto asaga free ugu soo biiri kartaa, hadii rabtid lacag waa bixin kartaa, laakiin kan lacagta bixisa waxa ka leeyahay bakan waa ka heleysaa mararka wax yar laga reebo mooyaan oo waxaasna aad ka maarmi karto. marka website-kan markaa rabtid inaad kusoo biirtid aad furatid waxaa u baahan tahay browserkaadaanba waxaa iskaga qoreysaa TradingView.com kan intaan soo baxda ku dhufane search ayaa leedahay uu ku raadinaya. kadib marka halkan ku soo baxdo halkan ayaa waxa ku dhufanaysaa get start marka aad halkan ayuu ku keenaya oo macnaheedu tahay sign up account ka sameyso. hadii aad account ka leedahay, hadii aad ku leedahay login waad sii dhaxsan kartaa. sign up ayaad ku dhufanaysaa, halkan qaybtan email-kaas ku dhufanaysa. haddaad rabto Google-kaada ku xiran kartaa, haddaad rabto Facebook-gaada ku xiran kartaa, laakiin email ku sameyso mar walba si aad long time kadib aad ugu soo laabatid oo automatic oo aad Gmail-kaada waxaad u gashatid. okay, email ayaad ku dhufanaysaa. okay, halkan user ay ku qoran tahay waxaad gelinaysaa maxaa la Gmail-kaada inta u horeysa adoo @gmail.com aan raacin oo kale halkan gelinaysaa. halkan waxaad gelinaysaa Gmail-kaada gelinaysaa, halkan password-kaada gelinaysaa. password oo Gmail-ka password-kiisana waa gashan kartaa hadii rabtid. hadii aad rabtid password-ka Gmail-ka mid ahayn hadhow waa kan kusoo kacsatina waa gashan kartaa, laakiin waa xog amaan oo kan Gmail-kaada gasho si aad hadhowtidii u hilmaam. qodobka kale wuxuu noqonayaa halkan inaad hayadana tick saartay noqonaysaa. sidoo kale halkan inaad tick hayadana saartay noqonaysaa aad cadeysin inaad roob badayn. kadib waxaad leedahay create account, sidaas ayuu kugu sameysmay account. kadib account-ka markuu sameeyo Gmail-kaada tagaysaa, activate ayaad leedahay. halkan user-kaad gelisay iyo password-ku hadhow inta kala sign in meesha ay ku qoran tahay ku dhufanay account inaad leedahay camal. marka halkan ayaa gashanaysaa halkan ayaa gashanaysaa user-kii halkan gelinaysaa, password-kii halkan gelinaysaa. marka aad intaas soo sameysay kadib automatic ayuu kugu soo kicinaya. marka ina fahamtay waa rajeynaa intaas. kadib marka aad halkaas ku dhufato oo ku soo qabto waxaa sameynaysaa gudaha ayaa website-ka u gelaysaa. qaybtan chart-ka ayaad tagaysaa, gudaha ayaad u tagaysaa. waxaa hadda arkaysaa shaashada marka u horeysa aad furato inaysan wax qurux badan ahayn, wax isku aadanaysa ahayn, wax fiican ahayn sida midda hadda halkan aniga iga kacsan oo kale. shaashada hadda waxaa ujeeda inay wada ka jirtaa wax ku jirjirinin. halkan bayriska iyo wajlistiga lacagaha ay igu wada diyaarsan yihiin ay ku wada jiraan, laakiin kaas marka saas u furato Allahumma salli ala Muhammad, marka saas u furato automatic waxaan u diyaarsan. waxaa ujeedaa inuu halkan wax kaaga soo saarayo shaashada ash ahayn waxyaabo badan oo arkaysa. sidoo kale in halkan si fiican kugu wada muuqanin oo ujeeda lacagahan trade gareyn leed 20 beer forex-kan ay isku jirnaa lacag kale ay ku jirto. marka waxaa sameynaysaa si aad waxaan dhan u bedelto, right click ayaad leedahay. kadib qaybta setting ayaa tagaysaa. right click marka dhaca qaybta setting ayaa tagay. sidoo kale hadii aad kala waxa ka tagi kartaa halkan ay ku qoran tahay setting marka halkan ka tagtid meeshaan color-ka aad jeceshaa ka dhiganaysaa. okay, hadii color-kaas uu noo saaran yahay ku deysano kana waa iska okay. maxaa kale meeshaan uga baahanahay soo qaybtan hooseysa tag ayadana wax badan ka bedelayno article ayadana waxyaabo qaar oo muhiim ah inaa ku jiro. marka si aad u bedesho shaashada aad u qurux badnaysta qaybtan appearance-ga soo tag. qaybtan halkan waxaa ka dhigtaa weight ka dhig. weight marka ka dhigto numbers-kan 100 iska gawada weight ka wada dhig. okay, tanna ku dhufo weight ka dhig ayadana wada buuxi 100 iska gee. tanna sidoo kale ayadana 100 ayadana waa buuxdaa waa weight weyn oo saaran. kadib markaa intaas sameysid okay ayaad leedahay. waxaad ujeedaa shaashada meelaha awal xariiqmii ku jirjiro dhan hadda inay ka bixinay fresh ay tahay. sidoo kale halkan waxaa kaaga soo muuqanaysa lacagtan aad dul taagan tahay magaceeda
GBP USD inay tahay. halkan sidoo kale ayadana time frame kuwa time frame marka ku dhufatid waxaa ujeedaa inay 1 second 5 second 10 second 15 second 30 second waxaan dhan ay ku wada jiraan mid ka rabta suuq ku akhrin karta hadda one day noo saanayo 1 hour kan oo kala tagaysa asagan waa shaashadu isbeddelsa 1 hour bay ku soo noqonaysaa hal saac wixii u dambeeyay waa heli kartaa haddii aad rabtid 4 hour ka kala iyo 3 hour ka kala geysan kartaa easy wax weyn ma suuq markaas aduu daily trader iyo waxa waa iyo maxaa la yiraahdaa qof trader dheer ku dhagan iyo nooc xatay ku xiran tahay saa ugu taxliilis laakiin anagu inta badan waxaan isticmaalnaa 4 hour ka wax ugu badan waxa isticmaalno ilaa iyo wixii ka hooseeyo maadaama aan rabno inaan maalinkaas aan suuq wax ka helno iyo isbuucaasba okay meeshaan kale iyadana waxa waa candlestick okay intaan tan kasoo gudbin tan marka waxa u baahan tahay yani time frame-yada isticmaalayso sida 1 minute oo kale 5 minutes oo kale inaad tig saaranaysaa and 1 second ka xitaa saan tig waa saaranaysaa inta u baahan tahay isticmaalayso sida 1 hour oo kale 2 hour oo kale 4 hour oo kale 3 hour ki 4 hour oo kale saas u saaran kartaa 1 day oo kale intaas tig markaa saaratid halkaan ay ku soo wada awal meeshii aad halkaan ka wada raadin lahayd calaamadan soo furdheed hadda waxaan 1 second 5 minute 1 hour 2 hour hal mar intay ku soo wada saaran waa option koowaad option labaad waxa waaye hay'adan halkan waxa ku jira candlestick suuq waxyaabo badan lagu akhriyaa sida bearskan oo kale suuq isbedelaya chart ayaan arkaysay oo candlestick ah wuxuu noqday calaamadahan uu noqday saan u taagtaan halkan soo maaragt kadib candlestick ugu dambeeyay wax la isticmaalo oo inta badan dadku isticmaalaan laakiin laneskan iyo area waxyaabaha dhan waa la isticmaalaa waxa kala dad gaar hadda marka ku aragtay alla yaabtay isugu noqon oo qofba wuxuu barto u isticmaalaa qof areadan isticmaalaa oo ayadana farshaxan kala suuq lagu akhriya laakiin anagu candlestick sida dadka professionalka ay dadka ugu dambeeyay adduunka laga isticmaalo candlestick ugu fiican wax la fahmo suuq lagu fahmo ugu fiican ayada marka anaga noo saaran ayadaan diisanayna sidoo kale waxaan inaa iska qaadid haddaa rabtid right click dheh remove halkaan dheh okay kadib markaas intaas isla helnay halkaan waxaa ku jira lacag aad u baahnayn halkaas geeskaas tageysa waa iska saaraysaa saasaad leedahay adaa iskaga wada saaraysaa dhammaantood waa iska wada saaraysaa wax aad u baahnayn oo dhan saana iskaga saaraysa okay tanna saana ujeedaysaa hoos ayaad iska geedaysaa okay lacagta aragti marka halkaan ayaad ku dhufanaysaa ayaad kusoo darsanaysaa NCD lacagta New Zealand iyo USD oo wada socda USD tan marka ay ku qoran tahay halkaan forex.com-ka taas soo dooro ku dhuf okay hadda wuxuu nooga diidayaa login sax nooguma jiro yani akoonkaadi soo gashuuna leeyahay kadib aa uga yara laabano afan marka aan soo bilaabo shaqadii dhimal ka rasuulina intaan marnoo soo rakacay Allahumma salli ala Muhammad waxaan sameynaynaa marka hay'adana saasa ugu soo darsanaysaa waa fahanti sooma duxiyaan ugu soo noqday iska saaraysaa wixii saasa ugu soo darsanaysaa halka hadda halkan ugu socono halkan alertiga ayaa looga darsadaa markaa rabtid ayadana sidoo kale una leeyahay afan akoon markaad ku leedo fiican marka ayadana alertiga looga darsadaa halkaas hadda intusahay shaashada waa kan bartaan alerti ayaa looga darsadaa haddaad rabtid suuqu inuu ku dhaafinin oo markuu halkan tusaale suuq movekan soo dhacay movekan labaad laabtay kan saddexaad marka halkan ku laaban aragtid inaad ka gashid oo kale alam ayaa lagu xirtaa meesha markuu yimaado alamkaas ayaa kusoo socodsiinaya kusoo sheegaya alamkaas faa'iidadaas way u leeyahay sidoo kale waxaa la isticmaali doonaa halkan aan uga baahanahay train lane-ka calaamadan train lane-ka oo suuqu lagu cabirto jihadiisa oo kale marar badan haddaa aragtay saan camal loo saarto marka iyadana
markaa u baahan tahay halkaan ayaa kasoo furanaysaa. sidoo kale calaamadan arrowga ku jiro oo suuqa markaa rabto qof inaad tustid oo kale aad sawir intaa ka qaada u dirtay oo kale aad leedahay halkaa markii la tago ayuu suuq kasoo daadanaya saas camal aad leedahay halkaa xamal kasoo daadan hayadana waa kii kale calaamadan hayadan intaa laga soo furta. sidoo kale horizontal arrayga calaamadan hayadana sidaan oo kale meesha u saaran leedo kale laga yaabo ayadana halkaas ayaa laga soo furta. marka waxa u baahan tahay oo dhan hal tig ayaa la soo saartaa si meelahan ay hadhow ku wada aad inta soo furfurin aad u raadin tig ayaa tan saar tan u baahan tahay tig saar halkaan ku soo istaagaan waa kuwana. sidoo kale tan tig saaro waa kan u baahan tahay tig iska saaro kan tig iska saaro karosnaan iska saaro. okay daaqadan ku hooseysa imo iyadana waxa uga baahanahay fibkana u baahanahay fibritrismtiga asaga gadaal ayaa uga tegi doona asagana oo cashar gaar ah ku qaadan doona asagana tig soo saaro. maxaa kale halkaan uga baahan tahay waxyaabo badan aad isticmaali doonin baa ku jira ka soco. buraashka qaranka yarkaaga kale suuqa markaa qof u calaamadeynay sidoo kale u baahan tahay isagana soo saaro tig. waxaa kaloo soo haray rectangle-ka waxa ugu badan asagana isticmaali doona u baahanahay oo suuqa la saarto oo kale lagu calaamadeysto isagana soo qaado waa muhiim. waxaa kaloo meeshan ku jiro u baahan tahay waxyaabahan kale uma baahnid ka soco. halkaan tag qaybtaan markaa rabto qof inaad qoraal shaashadan ugu qortid oo qoraalkaas uu akhristo oo kale mise sawirtaad trade ka qaada aad qoraal rabtid inaad u raaciso sidoo kale ayaa calaamadan loo isticmaalaa. ayadana qoraalkan soo qaado saas ayaad meel ugu dhufan kartaa yep saas ayaa ugu dhufan kartaa hadhowna waxbaa ugu qorqori kartaa saan adhootida kala qoraalka meesha rabtaa dhigi kartaa ku sufan. calaamadan hayadana tig soo saaro waa u baahan tahay mararka qaar inaad qof wax ku tustaa laga yaabi karaa. markaan maxaa kale uga baahanahay wax kale halkaa uga baahan toolka ka hooseeya imo isagana dadka market structure-ka iyo elite wave-ka isticmaala ayuu nidaamkan ayagu manfaca oo head and shoulder iyo three touch-ki iyo waxyaabihiiba ku jirjir iska soco isagana muhiim gaar ma calaamadan longiga suuqa bayga soo qaado tan shortiga suuqa seerkaana soo qaado. meesha kale maxaa u baahan tahay price range-gana soo qaado suuqa ayaa ku cabiranaysaa bibiska lagu xisaabiyaa soo socda tan ayadan bibiska lagu xisaabiyaa oo suuqa markaa rabto inaad intaas u biba ayaa qabtay oo waxa kuu sheega halkan ku qoran 230 bibi oo kale calaamada marka hadaan meel sa u taabato way kacaysaa isla markaa automatic. laakiin midii kale hadda kuu sheegay oo tan ay soo qaado ku dhacay iyada markaa soo qaado asaan u saarto calaamadsatid haddaan meelahan kale iska taabto qoraal kale iska wadwadatid ma ka kacaysa meesha waa ku taala. marka tanna saas waay laakiin waa isku same waxa difference kala duwan ma sheegaan. waxaa ku soo haro kale remove indicator markaas aan laga qari. sidoo kale shaashadaada haddaad rabtid madow inaad ka dhigatid meesha hadda aad ku laaban kartaa setting-ka waxaa sameyn kartaa shaashadaada ayaa wax ka dhigi kartaa kalarkaada kalar ka duwan oo madow ama cadaan ku rabaa kalarkaa ku sheegaya ayadana intaa ka bedelan kartaa kana intaa kalarka aad rabtid baa ka dhiganaysaa madow haddaad rabtid blue haddaad rabtid nooca aad ka heshay shaashada ayaa ka dhigan kartaa muhiim ah adina usaa ku fahan. laakiin madow waa ugu fiican maadaama suuqa inta badan aad rabtid inaad inta badan dul joogaysid oo rabtid inuu indhaha iyo shaashada cadaanka iyo waxaas kaaga dhicin. laakiin dad qaar cadaanka jecel nooc cadaanka iska isticmaala inta badan aduguna markaa kii aad rabtid waa samaysan kartaa kawaa kaasa. afkan isticmaalkiisu intaas ayaa ugu muhiimsan intaas ayaana ku quseynaysa insha allah. waxaa ku rajeynaa inaa casharkan aa fahmi doonto. okay screenka markaa ayadana qaadaysid sidoo kale halkan ayaad ku dhufanaysaa waa kan save ayaa uu ku noqon karaa oo sawir ahaan kugu save garaysan karaa computerkaada. copy chart image ahaan baad u copy garayn kartaa oo qofkii sawir ahaan baa ugu diri kartaa. sidaan halkan oo kalena linki ahaan iyo image ahaan wada socda ayaad u dirsan kartaa qof kale ugu diri kartaa. halkaan sawir ahaan ayuu kugu furahayaa oo geeskan kale ayuu kugu soo saarahayaa JPG keligeed oo picture ah markii aad qaad. tan kalena halkaan Twitterka haddaad ku dirsanaysid waxyaabahaas oo kale. abkan isticmaalkiisu waa kan ugu badan oo suuqa lagu taxliiliyo. waa rajeynaya inuu in badan asagana wax ka fahantay nidaamka loo isticmaalana waa sidaas. insha allah intaan video ku xiga ku kulmi doono insha allah
waxaan kaga tagayaa sidaas iyo amaan Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.